buugga waxaa ku jirtaa in madaxweynaha lagu qanciyey silsilaadda ka noqdo dadka ku qanciyey iyay ahaayeen adigu sama ka mid ah warkaas inuu yimi anagoo waqti yar joognay oo dhacdada noocaas ah 43 cisho markaan dalka joognay ee talada dalka madaxweynuhu joogaan aan xukuumad ahaan jiray ay arintan u dhacda waxa jira dee xanta arrimaha caafimaadka madaxweynaha la xidhiidha muddo badan bay taagnay hadda buugga xirsoon baa lagu arko dee lagu qora haddii qoyska madaxweyne Siilaanyo iyo mas'uuliyiintii kale ee xukuumadda la soo shaqeeyay arrinka ay beeniyaan oo yiraahdaan madaxweynaha xusuustiisa hoos uma dhicin aduu maxay ku difaacaysaa waxaan ku xusay shakhsiyadiisa aan leeyahay wuxuu ahaa styleka ama hanaankiisa hogaamineed waxaan nin dimuqraadi oo dadka dhageysta maadaama madaxweynaha ay xusuustiisa aad sheegtay in waraaq diyaarsanayo hoos oo aad xasuusinaysay dadka uu soo magacaabayo ee xilalka u dhiibayo yaa u sheegi jiray ma isaga soo xulan jiray sida ay arrimahaas hadalkaygu waxa weeye uu ku saxan yahay marwada la soo sheegtay waanu imi warwar buu ka muuji haddii dadka qaarba dhinac iska taagaya dadka qaar baa leh dee sir buu faafiyey oo qodobo badan cuskanaya haddii ay dhacdaba oo la yiraahdo Xirsi Cali Xaaji Xasan sirtii qaranku faafiyey waxyaabo lagu heshiiyo faafiyey adigu diyaar ma u tahay haddii sharciga laga soo madaxweynuhu isaga tireen maxaan uga tagay daan talini man joogo daan ugu talini man joogo